بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان حبناها كلها قرنك الصوماليات ملي وجوجتان بقى كلها دلنيرة الصوماليات كلها هوينك الصوماليات كلها أرضية الصوماليات يدمان هجانا ده كلياشة إيو صاحبة ده آدك gacanta inuu ka siiyay arrimaha aynu doonayno inaynu gaaro iyo himiladayna dhow iyo tan fogba. Waxaan idin rajeynayaa bisha barakeysan ee Ramadaan baraare cibaado wanaagsan iyo sanad wanaagsan hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. bisheedana inuu Ilaahay nabadgeliyo cibaado wanaagsan inuu Ilaahay ummadda ku gaarsiiyo. aad baan ugu faraxsanahay dadaalada faraha badan aad goraale ku jirtaan ama u taagan tihiin sidii aynu ayaha qarankeena himilada shacabkeena horumarka wadankeena aynu u gaari lahayn si aynu maalin u aragno oo aynu nasiib ugu yeelano hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Soomaaliya oo ah Soomaaliya cagaheeda ku taagan, Soomaaliya isku tiirsan iyadu oo aan ku tiirsanayn shisheeye iyo cid kale, Soomaaliya isku filan oo aan cidna u baahnayn hadduu Ilaahay awood la raalli ka noqdo. waxaan sidoo kaleeto halkan tacsi uga dirayaa dhammaan dadkii ay dhibaatooyin ka soo gaareen dagaaladii sukeeye, kuwii ay dhaawacyadii dhibaatooyin ka soo gaareen. waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu Ilaahay u fududeeyo. waxaan sidoo kaleeto aan halkan uga baaqayaa dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiga ee dalalka deriska ah ama wadamada fogfog ama dalka gudihiisaba. waxaan Ilaahay uga rajeynayaa inuu ina soo gaarsiiyo maalin aynu wadankeena ku wada ciidno, maalin aynu wadankeena wax ku wada qabsano hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. waxaan halkan maanta khudbadeena jimcaha kusoo qaadan doonaa oo ay ku salaysnaan doontaa nabadda iyo dib u heshiisiinta. sidaynu ka warhayno xubnaha aynu u bixinay laf adagta runtii ahaa xubno aad u maaragtay in muddo ah noola soo shaqeynayay isla markaana dadaalo fara badan oo ay doonayeen inay maaragtay gacan nagu siiyaan ay suurto gashay inaanu maalin isugu nimaadno goob ay cod iyo fikradooda iyo taageeradooda ku muujin karaan. iyana waxaan leenahay aad bay u mahadsan yihiin. dhalinyarada niyad samida wanaagsan leh ama aynu maanta ugu magac darnay young professionals isbedelka cusub ee dalkeena aynu la damacsanahay inaynu ka dhalino, horumarka cusub aynu doonayno inaynu dadkeena gaarsiino, dib u dhiska dalkeena, horumarinta kaabayaasha bulsho ee shacabkeena. waxaan leenahay iyana inay gacan wanaagsan ka geysteen ifafaalaha iyo qorshaha aan doonayno inaan isbedelka ku samayno hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. sidaan hore usoo sheegnay aan meelo fara badan uga hadalay, golahu maaha golo isagu doonayo inuu xil qabto oo xilalka iyo mas-uuliyadaha la isku haysto ay wax ka qabto, laakiin golaha qaranka Soomaaliyeed waa ubucdii afdhabartii bulshadeena samayn lahayd falsafadii iyo himiladii la isku taagi lahaa ee wadankeena isku taagi lahaa, iyadoo laga guurayo institutionadii iyo waxyaabihii lasoo qoray ee dastuurka lagu sheegay, kii qabyada ahaa iyo kii la dhamaystiray iyo kii u dhinaaba, iyadoo la dheeli tirayo sharciga iyo shareecadu maxay ka qabtaa, sidee la isu waafajin karaa, maxaa laga soo qaadan karaa oo muhiim ah, mase loo baahan yahay in iyadana doodeeda miiska lasoo saaro. inaynu bayaanino qorshihii dheeraa aynu damacsanayn inaynu dalka dib u dhiskiisa uga qayb qaadano oo civil engineerskeena ay mahadiha ka gaadhay ay maaragtay muddada dheer kasoo shaqeynayeen, health society-ga oo iyaguna sidoo kaleeto muddo kusoo howlanaa sidii ay arrintan uga qayb qaadan lahaayeen, iyo dhammaan qeybaha kala duwan. waxaynu maanta marti u nahay oo aan doonaynaa inaan iyadana aada u meeshan garayno young professionals qaybta caafimaadka oo dabcan halkan maanta aanu ka rajeynaynay inay inta ayna soo hordhigeen
ay maaragtay ayna soo hordhigi doonaan waxna cajabiyoona farxad geliya aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii weliba in tiimkaas ay xuleen ay qorshe qaran oo caafimaad oo dhammaystiran iyo technologiyadii health and technology inaynu maanta marti u noqono aynu qaadano maaragtay sessionadaas kala duwanaad bay iyadana noo dhiirigelinaysaa. haddaanu gudbo arrimaha nabadda iyo dib u heshiisiinta, nabaddu waa aasaaska nolosha. nolol aan nabad lahaynin nolol maaha. sidaynu ognahay dalkeena waxa in muddo ah ama in muddo fogba uu la daalaadhacayay amni darro iyo nabadgelyo la-aan. nabadgelyo darradu waxay tahay waxa keliya salka u dhigila hanaan waara oo nabadgelyo ama hanaan waara oo nololeed ay dadka iyagu ay helaan. waxaa u diidan waa nabadgelyo darrida. nabadgelyo darridana sababaa keenaya wax walbaana waxay leeyihiin causes iyo consequences. marka waxaan jeclahay oo aan runtii in dhawaalaba dhiirigelinaynay annagoo in muddo oo fog maaragtay u aragnay si taa ka duwan oo aan u aragnay in maaragtay ninkii bal wixii dhibaato waddanka ka dhacay in miiska lasoo saaro. laakiin maadaama ay xaddigii ka bateen dhibaatooyinkii inaan horta go-aanka geesinimada leh aanu qaadano ummadeenana aanu la hortagnaaci waa iyadana challenge cusub oo u baahan kartidiisa adaygiisa iyo geesinimadiisa. runtii haddii aanan go-aankaas geesinimada ah aanan qaadan waxaynu runtii noqonaynaa failure ka mid ah failuradii waddanka soo maray. tijaabadeenuna ma aha inay noqoto tijaabo miro dhali weyda, waa inay noqotaa tijaabo miro dhasha si dhaba u maaragtay u miro dhasha. annagoo taa ka duulayna marka waxaanu la nimi himilada oranaysa ama hanaanka oranaya iscafis iyo wada noolaansho. qorshaha iscafinta iyo wada noolaanshuhu waxa uu ku xiran yahay sidii qofba qofka kaleeta ee walaalkiisa uu isugu dayi lahaa inuu cafiyo si ay u suurta gasho wada noolaansho dhaba in la galo. annagoo tusaalooyin usoo qaadanayna mid diineed iyo mid dabeecadeed iyo waxyaaba waqtigu uuna baray oo aanu soo aragnay oo ay ka mid tahay dagaaladii dalka ka dhacay ee laga heshiiyey ee qabaa'ilka Soomaaliyeed ay ku dagaalameen qaybtood iyadoo ay maaragtay ururadii waddanka ka jira qaybo kamid ah ay ku dagaalameen oo laga heshiiyey oo tusaalooyin aan usoo qaadan karno dagaalkii ugu foosha xumaa dhex maray al-Ittixaad iyo SSDF ee ku dhex maray magaalada Garowe, Boosaaso iyo meelo kaleeto oo ugu dambeyntii ay heshiis waara ka gaareen isla markaasna dadkii dagaalamayay iyagoo maanta wada jira ay wada nool yihiin halkaasna ay horseed u noqdaan dib u dhiskii goboladaas waqooyi bari Puntland ay maaragtay amnigeeda ay helaan. annagoo tusaale usoo qaadanayna wixii gobolka Geda ka dhacay, annagoo tusaale usoo qaadanayna meelo fara badan oo kala duwan. wax ka wanaagsan ma jiro in la implementi gareeyo oo weliba ay slogan inoo noqoto cafa Allahu cama salaf, oo haddii maaragtay ilaahay dartii la isu cafiyo ay suurtagal tahay in dadka iyagu wada noolaado iyadoo laga digtoonaanayo waxyaabihii iyo sababihii dhaliyey khilaafkii foosha xumaa ee dhibaatada faraha badan keenay, iyadoo laga digtoonaanayo waxyaabihii dhaliyey kala shakiga iyo tafraaruqa, iyadoo laga digtoonaanayo waxyaabahan dalka iyaga dani ugu jirin. waayo waxa keliya aan ummadda Soomaaliyeed aanay ku muransanayn waa inay dad muslimiin yihiin oo ay diinta islaamka haystaan ilaahay aayaadkiisana ay maaragtay waxa keliya ay ku kala badbaadi karaan ay tahay. iyadoo marka aan isdil iyo isdagaal iyo mushkilad aanay jirin sidee loo wada hadli karaa oo loo samayn karaa isfaham iyadoo meel la dhigayo danaha iyo aragtiyooyinka kala duwan? sidee loo dhaqangelin karaa inta aynu iska fahamsannahay, inta aynu isku raacsannahay sidee baynu usoo wadan qaadan karnaa inaynu Soomaali nahay, inaynu muslimiin nahay, inaynu sunniyiin nahay? halkaa laga soo bilaabo. taas wata arrinta xigta oo aan jeclahay inaan iyadana aada runtii ugu maaragtay ugu nuuxnuuxsado waxa weye arrinta ah Sheekh Xasan Daahir Aweys oo isagu kamid ahaa odayaashii Soomaaliyeed ee muddada maaragtay usoo taagnaa arrimahan diinta waddankeena sidii maxaa la yiraahdaa uu bal maalin ay uga dhaqangeli lahayd shareecada islaamka dalka
iyadoo ay marxalado fara badan runtii ay la gashay ugu dambeyntiina ay sabab u noqotay in maaragtay uu maaragtay isagoo oo doonaya inuu bal isku day ka duwan siyaabihiisii hore ama nabadgelyo ha noqdo ama siyaabo kale ha noqdee inuu kaga qayb qaato hanaanka dib u heshiisiinta, taasoo ay dad Soomaaliyeed ay isku dayeen walow aanan details fara badan oo sidaas usii balbalaaran oo u qeexqeexan aanan ka haynin. haddana intii aan ka ogeyn waxay ahayd bal in maraaxilahan dambe ee waddankuya uu galay sidii wax looga qaban lahaa, sidii maaragtay iyo anigoo runtii isku dayo fara badan ka sameeyey laftigeyga oo de si public ah oo aan maaragtay cidna ka qarsoonayn aan idaacada fara badan oo ay kamid ahayd idaacaddii ugu dhaweyd ee magaalada Baraawe ee la oran jiray ama la yiraahdo Alfurqaan, waxyaabo fara badan wareysiyo badan ama aniga ama xubno dowladda ka tirsan ama xubno ka madax bannaan dowladda ama mucaarad ku ah ay la yeelanaysay aan kaga hadlay runtii muddo fogna aan kaga hadlayay waxa kaliya wada noolaansho iyo lagu heli karaa waxa weeye nabad, iyadoo midna lagu duulayo midna la difaacayo in waddankeenu gacanteena ka baxo oo aynu inagu berri is eersano wax aynan berri soo celin karin inaynu maanta sabab u noqonaana aanay maaragtay suurtagal ahayn. lagu fikiro sidee bay suurtagal u tahay, sidee xeega u noqotaa ilka u nabad galaan, sidee waddankeena u noqdaa waddan isagoo aayihiisa ka tashada, ilaahiisa u noqda, iscafiyo dambiyadii la kala galay la isku cafiyaa, sidee baynu maxkamadaheena inagu dhexdeena aynu diinteena ugu dhaqanaa, sidee baynu waxaynu inagu leenahay u samaysanaaye aynu u midownaa walaalnimadeena iyo kalgacalkii ummadda Soomaaliyeed u soo celinaa. arrintaasi waxay u baahan tahay maaragtay dhabar dhab ah oo u taagan, waxay u baahan tahay hal adayg dhaba, waayo waxaynu ognahay nabaddu waddankeena ka dhacdaa cadowyo fara badan bay leedahay. cadowyada faraha badan ee waddankeenu ay leedahay mararka qaybtood Soomaali ayaa kamid ah oo weliba safka ka hore kaga jirta uguna horeysa in nabad la helo inay maaragtay siyaabo ku diidan yihiin ama dana gaar ah oo iyagu ay leeyihiin ha u arkeen, ha u adeegsadeen dana qabyaaladeed, ha u adeegsadeen ilaalin dana kaleeto ay ilaalinayaan oo ay shisheeye leeyihiin. waxaa iyadana taas garab socda waddankeena inuu noqday waddan caalamku waddan walba uu soo dirsado jawaasiis iyo spice aan la garanayn ujeedada fog oo ay leeyihiin in la shaqaalaysiiyo Soomaali aad u fara badan oo asxaab iyo maaragtay qofku ugu dhow iyo qof walbaaba u leeyahay oo aanay garanaynin xitaa qiimka iyo qiimaha uu ku fadhiyo qofka Soomaaliga ah oo aad arkayso in qof Soomaaliyeed si khaldan loo soo xiranayo, si khaldan loola dhaqmayo, si aan insaaniyad lahayn oo aan Soomaalinimo lahayn in maaragtay loo dilayo qof Soomaaliyeed oo aan lagu xisaabtamaynin war waxaan haddii adduunka aan lagaaga xisaabinin in aakhira lagaaga xisaabin doono. iyadana waxay muddaa in arrintaas ay dadkii ka gudbeen. waxaan marka ku boorinayaa in loo noqdo maaragtay iscafis iyo in ilaahay laga boqo oo aad maaragtay looga digtoonaado arrimaha gobolada jubbooyinka, arrimaha ugu xasaasiyadda badan ugu dhibka badan runtii una baahan inaanu meeshan gareyno ayay kamid yihiin. horena waanu meeshan gareeyay waana ku adkahay inaan arrimaha meeshan gareeyo. waxna waa waxaynu inagu qabno aaminsanahay ka gol ahaan aynu aaminsanahay warkeenu meel ku cad yahay, anigana aan aaminsanahay oo si dhab ah aaminsanahay. waxaan si cad u diidanayn oo aan maaragtay uga soo horjeednay waddankayagu inuusan ahayn waddan qaadi kara federalism, faquuq iyo in xaafadihii goboladii iyo degmooyinkii lagu sheego inay dowlada noqdaan, qabaa'ilkii ay maryo soo tushaan, degmo walba ay noqoto maaragtay degmo iyadoo iskeed isu maamusha. arrinta noocaasihi waxa weeye tafaraaruq waa kala tegid, midnima wanaag lagu guntaa laguna waaraa maaha maaragtay wax xal u ah. tusaalooyinkeedana waanu haynaa wayna soo bixi doonaan oo dadka maaragtay maanta u ololeynaya berri iyagaa isku qabsan doona waa wax hubaal la hubo iyadana aan dan ahayn. faragelinta ay dowladaha Ethiopia iyo Kenya, Uganda, Burundi iyo wadamada la midka ah ay waddankeena ku hayaan maaha waddan u adeegaysa ummadda Soomaaliyeed. halka aragtida ah haddii loo baahan yahay cid loo baahan yahay
waxaan aaminsanahay in lagu bedelo ciidamo turki ah ama ciidamo masaari ah ama in lagu bedelo wadamo kale oo muslimiin ah oo aan daris nala ahayn. taasi waxay markaa u adeegi kartaa dan midaysan, isla markaana kala duwanaanshaha dowladaha danaha kale leh ee wadankeena ku loolamaya inaanay dan u ahayn. waxaan runtii kusoo gabagabeynayaa oo aan iyadana leenahay qaabka dowladdu ay u wajahday ama madaxweynaha uu u wajahay arrimaha Kismaayo aad ayay u khaldan yihiin. annaga oo tixraacayna qodobadan soo socda oo muhiim ah in dadka Soomaaliyeed ay ka fiirsadaan, maadaama arrimahani ay arrimo xasaasiyada ay leeyihiin. horaan usoo sheegnay gobolada iyo degmooyinka dalkeena ma noqon karo dowlado marya soo tasha xaafadaha qabyaaladeed, xuduudaha qabyaaladeed iyo xaafadaha maryaha tasheeyeen. waxaan ka aaminsanahay long term ama muddada fog inaanay xal keeni doonin, ay horseedi doonaan dhibaatooyin hor leh, balse ay u muuqan karaan maanta wax meelaha positive ah. aragtidaas marka iyadoo sidaa loo fahamsan yahay aan u gudbo marka arrinta ah qaabkii dowladdu u wajahday ama madaxweynuhu u wajahay arrimaha Kismaayo. waxa aan ku diidanahay madaxweynaha iyo maamulkii ku meel gaarka ahaa ama maamul goboleedka hadda ka samaysmay goboladan jubbooyinka ee Jubbaland waxay isku waafaqsanaayeen Kenya inay labaduba saaxiib u tahay, walaal u tahay. annagu waxaan aaminsanayn Kenya inaanay dan Soomaaliyeed wadin, aragti Soomaaliyeedna aanay ku soconin, berina aanu ka nahay waxa ay wadaan. waxay ka midaysan yihiin oo ay aaminsan yihiin labada wadanku inuu dani ugu jirto federaal. madaxweynahana waxaa lagu soo doortay oo lagu dhaariyay federalism. maamulkaas iyo ragga meesha joogaan waxay aaminsan yihiin federalism. annagu taa waa kaga soo horjeednaa, iyagu ay aaminsan yihiin oo iyagana beri baanu kaga nahay. dowladda Kenya aan soo sheegnay inay iyagu iska aragti ka yihiin iyadana markii ay soo galaysay. qaabkii marka ay maaragtay dowladdu u wajahday waxay u arkayeen maadaama ay isku aragti ka yihiin waxyaabahaas oo dhami maamulka meesha jooga markii uu soo dagaalamay oo ay meesha qabteen kadib iyaga iyo Kenya maamulku meel gaar ah ayay ka dhiseen. dowladdu raalli bay ka ahayd, waana iskula socdeen. shir baa la qabtay. shirkii la qabtay oo ay maamulku qabteen waxaadba tiraahdaa oo aan la dhihi karaa shirku wuxuu ahaa shir ay kooxi wadato oo ay kooxi soo abaabushay, dan gaarana ay ka leedahay. waa si bal labadii dhinacba aragtiyahoodii loo balance gareeyo. yes wuu noqon karaa shir, waana la dhihi karaa inuu ahaa shir ay kooxi wadatay. laakiin haddii aan inta laysu yimaado la wada hadlin oo aan dowladda iyo madaxweynaha cidda ay dareemayaan inay shirka ka maqan tahay inay keenaan oo shirka lasoo fariisiiyo oo dowladda shirku ay soo dhex fariisato oo yidhahdaan no halkaas waa ay khaldan tahay jooji, xagga sidaas maaha. oo xitaa haddii ay doonayaan inaanu shirkan qabsoomin, shirka gudihiisa in doodii iyo wadahadalkii iyo debatekii iyo wax isku diidkii wada fadhi iyo wadahadal inuu maaragtay halkaasi si haddii ay maaragtay ay wax bedelayaan ay shirka uga bedelaan, haddii ay wax diidan yihiin shirka ay uga bedelaan, ay u muuqato dad wada fariistay oo wada hadlay, wada hadalkoodii uu socon waayay kadib khilaafkoodu halkaa uu ka bilowdo. fursadaas runtii dowladdu waa ay seegtay. xitaa haddii ay rabto inay carqaladayso inay shirka gudahiisii fursadaas dowladdu waa ay seegtay. prime ministerkii dowladda oo yimi Kismaayo ayaa la yiri shir baa halkaa waxaa fadhiya 800 oo qof oo Soomaali ah oo ay horkacayaan odayaashii iyo cuqaashii 3 gobol ee soo doortay xubnaha baarlamaanka dowladda maanta jirta ee madaxweynihii adiga ku soo doortay mudane prime minister soo doortay. dheg jalaq looma siinin sida aan ka warqabo. prime ministerka isagoo aan u tegin ayuu ka dhaqaaqay. waxay ahayd inuu dhex fariisto, la hadlo, yiraahdo waad khaldan tihiin, khalad ayaad wadaan, waxaad wadaan raalli kama noqonayno, sidan aanu doonaynaa sidan yeela. oo intuu dhex fariisto halkaasi munaaqasho iyo wada hadal uu ka bilowdo, iyadana fursadeedii lama helin. wixii xigay waxay noqotay in shirkaas uu hore u sii socdo, loo fasaxo iyadoo aan isku aragti laga ahayn maamulkii ku meel gaarka ahaa oo maaragtay loo madax baneeyo inuu sidii isagu u doonayay wax u wato. arrintaas markii ay dhacday waxaa dhacday inay doortaan madaxweyne. isla maalinimadii madaxweynaha loo doortay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe in ay shakhsiyaad magaalada Kismaayo kaga dhawaaqaan qaybtoodna maxaa la yiraahdaa ay sheegeen inay odayaal doorteen. runtii
shir hore u socday shirkaas ahayn magaalada Kismaayo laguma ogeyn ha yeeshee waxaa dhacday in madaxweynayaal dhowr ah ay halkaa kaga dhawaaqeen inay madaxweynayaal yihiin iyaga marka waxaa sheegtay inay iyagoo musharaxiin ah shirka dhex tagaan oo fariistaan haddii ay khalad ku arkaanna ay yiraahdaan anagu khaladkaasaanu aragnay sidaas daraadeed maaragtay waxaa dhacday kushubashaa dhacday khalad baa halkaas ka dhacay iyagoo aan shirkii dhex fariisanin shir kaloo lagu ogyahay aanu jirin ayay iyagiina sheegteen inay madaxweynayaal yihiin arrinta noocaasihi waxay sababtay dagaalkii aynu aragnay oo khasaaraha faraha badan dhaliyey ee ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhinteen lagu dul dagaalamay shacabkii Soomaaliyeed dhibaatadu ay kasoo gaartay taasoo jirta ayaa haddana dowladdu ay soo saartay bayaan ay kulli ku leedahay waa ma aqoonsanin maamulada ismagacaabay ee meesha ka jira arrintaas waxay sii fogeysay kalsoonidii dadkaas deegaankaas wax kasoo samaystay ee meesha joogay intaas muddada ahna meesha fadhiya ama usoo dagaalamayay iyadoo qaabab kala duwan oo ka wanaagsan loo wajihi karay marka dowladda waxaan ku diidanahay oo aanu kaga soo horjeednaa waxa weeye qaabka ay u wajahday laakiin in dowladdu ka saxan tahay oo haybad ahaan iyo hanaan qarannimo ay dowladdu kaga saxan tahay in wadanku qaabkan federalismka ah iyo qaabka ay qolyahani ay wax u wadaan goboladu inay khaldan tahay runtii dowladdu waan ku raacsanahay laakiin waa in arrintaas la fahmaa oo loo fahmaa sida aanu u nirin midabta koorkii qabiliga ahaa iyo musuqmaasuqii shacabkeena wuxuu diray qulubtii dadka Soomaaliyeed waxa uuna lumiyay kalsoonidii qofka Soomaaliyeed uu dareenkiisa si dhab ugu tacabiri lahaa dadka Soomaaliyeed waa inay bartaan in wada hadalka iyo fahamku ay muhiim tahay inaanan lagu mashquulin qofka intiisa xun in la raadiyo oo la yiraahdo intaasaan khaldan oo aanu ka qaadanaynaa waa in loo fahmaa waxa qofku markuu ka hadlayo ay qaran iyo dana qaran in loo fahmo waxaan inay dan qaran oo Soomaaliyeed tahay arrimahaas aan halkaas kusoo xusnay dhammaantood waxa ay ku dhamaadeen dagaal dhiig fara badan oo ku daatay khasaare fara badan oo shacabka Soomaaliyeed ka soo gaaray dhibaatadeeda iyo maaragtay jabkii halkaas ka dhacayna laga hortagi karay runtii oo siyaabo kale oo maaragtay loo isticmaali karay taasoo jirta ayaa waxaa dhacday in dowladdu ay usoo jeedisay eedeymo Kenya inay dagaalka ka qayb gashay isla markaasna ay taageertay garab ka mid ah garbihii meesha ku dagaalamay aragtida marka aniga aan ka qabo shakhsiyan waa laga yaabaa xubno golaha ka tirsanay inay aragti taa ka duwan qabaan laakiin aragtida aan qabaa waxay tahay Kenya inay ka barbar dagaalanto kooxdii markii horeba ay wada dagaalamayeen ay isku meesha u socdeen inaanay ku khaldanaynba oo ay inay xataa cadeysato si dhab uga qayb gaadasho ay u haboonaan lahayd maadaama alliance-gii kaliya la socday ka barbar dagaalamayay oo dagaal galay inay Kenya kaliya dagaal gasho kuwana aanay dagaal galin walow aniga caqiida ahaan iyo principle ahaan aan u arko ninka gaalka ka barbar dagaalamaya in xitaa diintiisa lagu noqdo oo bal halkaa bal wax laga fiiriyo haddana caqliyan marka loo eego laba qof oo wada socdo mid dagaal galay inaanu kii kala dagaal galin iyada laftigeedu waa waxyaabaha siyaasiga ah ee ay dowladda laftigeedu inay fahamto ay u baahan tahay waxaa hadalka isagana ku xigay hadal isna muran badan dhaliyay oo aan sidoo kale debate TV-ga aan kaga qayb galnay home cable isagana dad fara badan ay ka bixiyeen aragti kala duwan waa soo dhaweynaynaa runtii waxaynu umad ku nahay inaynu kala aragti duwanahay haddaan dadku kala aragti duwanayn ummadnimadiisu macno badan kuma fadhido waa inaynu kala aragti duwanaanaa si aynu horumar u gaarno qof baa khaldanaan kara qof baa saxnaan kara laakiin muhiimadu waa isfahan Kenya sida aynu la socono iyo Ethiopia waxa ay representative u yihiin ama ay wakiil ka yihiin United Kingdom ama UK United States ama USA America iyo Britain waxaynu ognahay inay labadaas dal yihiin labada dal ee gacanta ku haya dowladda federaalka ee maanta joogta haddii marka kuwii gacmaha ku hayay kuwii u adeegayay ay mid ka mid ah dowladdu ka hor timaado ay tiraahdo waan la dagaalamayna sida ciidamada dowladdu ay sheegeen ama ciidamo falaagoobay ama koox goosatay ay sidaas yiraahdaan ama wasiirkii ama dowladdii ay ku eedeeyaan inay dagaalkaas ka qayb qaadatay Kenya waxay oran kartay alliance anaga naga barbar dagaalamayay Kismaayo nala xoreeyay dagaal nagula jira ayaa la soo weeraray ama isagu weerar qaaday inaanu ka baaqsanaana wax khaldan bay nala noqotay xaq bayna u lahaan kari lahayd inay sidaa tiraahdo laakiin Kenya
waxay tiri anagu maanan gelin inay run sheegaysay inay been sheegaysana anigu de Kenya ma rumaynayo marnaba oo inay been sheegaysaan xitaa ictiqaadsanayo ay dagaalka ka qayb qaadatay isla markaasna ay diidan tahay arrimaha Kismaayo ay u joogtaan inaanay ahayn arrimo Soomaaliya ay dana ugu jirto waxaan arkaa inay Kenya danteeda iyada u socoto sidii looga hortagi lahaana in ummadda Soomaaliyeed wax mustaqbalka fog u yaala inay tahay laakiin inaanay Kenya kaliya ahayn Uganda iyo Ethiopia iyo Burundi iyo kuwa la midka ah oo dhan in iyadana loo eego inaanay danahooda mooye aanay dan Soomaaliyeed u soconin xasuuqii Muqdisho ay Uganda ka geysteen mid la midana ay geysteen ama geysanayaan ciidamada Kenya iyo kuwa Ethiopia shaki kuma jiro waa waxaan ogahay waayo wiil Soomaaliyeed oo sharaf leh wadankiisa joogo danaha ummadiisa difaacaya hadaan la helin shisheeye dan ku qaban maayo waliba cadow ku ah oo maaragtay aan doonaynin inaad qarannimadaada iyo sharafkaaga soo ceshato arrimahaas marka aan halkaas ku soo xusnay waxa way tusaale u tahay oo ay tusaale u tahay waa dhab way dhacaysaa dad fara badan oo dawladda aad u aaminsan oo u taageersan inaga mucaarad nabadgelyo oo doonaya isbedel laakiin aan xukun doonaynin iyo mid xukun doonaya oo mucaarad ah mid damanihiin waxaan nahay himilo qaran oo wadankeena sidee loo dhisaa sidee dalkeena amni u helaa sidee waxay khaldan loo tusaaleeyaa sidee saaxiibka ummadda Soomaaliyeed iyo cadawga ummadda Soomaaliyeed loo kala tilmaamaa ayaynu ku wajahanahay aragtideen ku wajahan tahay de kulay cidii iyadu wax kale sheegaysaa waxay tahay iyaday u taala oo iyagu wax kale baahid kareynaya laakiin aniga waxay iga tahay kulay inaanan xukun iyo xil qabasho midna aanan u dareynaynin midna aanan dan kala hayn ayaa qarankayga danaha ummadayda sidii aan ugu taagnaa inaan ugu taagnaan doono taasna iyadana inay ummaddu fahamto ay muhiim tahay arrinta xigta waa arrimaha kasoo kordhaya Puntland iyo maamulka Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Cabdiraxmaan Faroole qoraan isagana uga hadlay maamulkaasu xilligii loogu talagalay oo ay ummadda gobolkaas dooratay mar hore ayuu dhamaaday sanad aan sharciyad ku bees garaysnayn تركوب أنا عدالة هاي doorashooyin aan xaq ahayn ayuu Cabdiraxmaan isku dayay inuu mar labaad ku majra hawaabiyo dadka gobolada degan dhibaatooyin ka dhacayay ama dhacay na waanu ka soo dignay wax badan baanu ka digaynay wax badan baanu ka hadalay waxaan nabad ku dhalanin nabad ma horseedaan waxa hubaala meeshan isbedel bay u baahan tahay hogaankii Cabdiraxmaan Faroole ummaddu aad bay uga daashay doorashooyin fara badan baa meesha hore uga soo dhacay Cabdullaahi Yuusuf baa ka tegay jaamaca baa ka tegay Cadda Muuse ka tegay adigana waad ka tegi doontaa inaad nabadgelyo uga tagto oo aad dadkaas oo isaysto amnigooda dhowranaya oo aan xasaasiyad iyo xasarad la gelin inaad ka tagto iyo inaad dadkii kala disho aad xaafad u kala erido oo aad kaga tagto tafraaro iyo dhibaato iyadana dhibteeda leedahay wixii maanta maxaa la yiraahdaa in wadankaas ka dhaca ama dhibaatooyin ama waxaan isleeyahay eedeeda waxa iska leh inta ugu badan Cabdiraxmaan maadaama aan ololeynin oo aan shir weynihii loogu talagalay ummadan inay aayaheeda kaga tashato inaan la qabanin waxay ummaddu soo doorato oo iyadu ay leedahayna ay ku heli lahayd qalalaasa lamida wuxuu dhacay xilliga Cabdullaahi Yuusuf uu isku dayay inuu 3 sano ku darsado wixii ka dambeeyay doorashooyin baa dhacay si nabadgelyo u dhacay oo aan cid maaragtay khasab iyo dagaal iyo buuq ku maaragtay walow aan diidanahay ama aanan jeclayn tafraaruqa iyo xaafadaha qabiiladeed iyo midabta koorka haddana wixii ummadda dan u aragto inay ku kala badbaado ay muddo ku noolaato waxaan soo dhaweynayaa in la tixgeliyo sida ummadda u fikrayso oo ah in doorashooyinku ay qabsoomaan oo aan qofkii yimaadaaba la imanin wax cusub isagu uu danaynayo ama uu arkay inay dani ugu jirto yaanay ku sababsanin amniga dadkaas ay haystaan inuu tafraar ka galo yaanay ku sababsanin waan u jeedaa way ku sababsan rabtaa waayo wax maalmahan dambe gobolka ka dhacaya
oo sharci darrada ah, dadka la iska xirxirayo, dhibaatooyinka waxay keeni doonaan. waxay ugu maqaalo ah oo kaleeto in doorashooyin iyo degaan iyo waxyaabo noocaasa oo aan cid ka warqabta, cid ku tala gashay aanay jirin maamulka Cabdiraxmaan Faroole mooye in la qaban doono. taasna waxay horseedi doontaa, waana meesha cabsida ugu badan iga haysa in dagaal ay ka dhacaan oo dhibaatooyin ay ka dhacdo. waxaan ilaahay ka rajeynayaa inuu ummadda ilaahay ka badbaadiyo. ummaddana waxaan jeclahay gobolada ku nool inay nabadda ka shaqeeyaan. Cabdiraxmaan wuu tegayaa, wuuna tegi doonaa, laakiin dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo deegaankaasuba way joogayaan, wayna joogi doonaan hadduu ilaahay raalli ka noqdo. waa muhiim inaad amnigiina ilaashataan, in la tixgeliyo dadweynaha Soomaaliyeed ee martida gobolka ku ah, in la tixgeliyo wadajirka iyo wada dhalashada iyo Soomaalinimadu inay ka weynaato maaragtay maamul goboleedsiga iyo xaafadaysiga iyo qabyaaladaysiga. waa in muwaadinka Soomaaliyeed uu kow xuquuqda ugu horeeya lahaadaa. waxaan idin leeyahay waxaa loo baahan yahay nabadgelyo, waxaa loo baahan yahay wadajir, waxaa loo baahan yahay xasilooni. ugu dambeyn, marxaladahaas aan kala duwan oo aan hore usoo sheegnay, dhacdooyinkii ayaamahan ka dhacay gaalkacyo, intaba inaanay ahayn wax uu danaynaya nabadgelyada. waxaan leenahay talada ha lagu celiyo dadweynaha, talada ha lagu celiyo odayaasha, talada ha lagu celiyo culimada iyo aqoon-yahanka. wadatashi iyo wadajir ayaa wanaag lagu gaari karaaye, hala wada tashado. runtiina waxaan ku adkeynayaa mar kale, Cabdiraxmaan dadku waa uu ku daalay, qof walbaana kuma waarayo meesha, waa la imanayaa. nin walbaana waxay uu dhiso ama uu kaga tago ayaa dhaxal ummadda u noqonaya, laguna baran doonaa. waxaan rajeynayaa arrintaas inay Cabdiraxmaan iyo caruurtiisuba inay u noqoto tusaale, in idinku filan. runtii dhibaato dadkii waad gaarsiiseen, cabashada way idinku badan tahay, aad baa laydinkaga cabanayaa inaad u tanaasushaan dadweynaha Soomaaliyeed. waxaan sidoo kaleeto aada uga xumahay waxyaabaha iga soo gaaraya, inkastoo hadda xal laga gaaray gobolka Shabeellaha Dhexe ee degmada Jowhar. runtii ahaa dareen aada u xanuun badan. iyadana waxay u baahan tahay in samir iyo dulqaad iyo amniga gobolka Shabeellaha Dhexe inuu yahay amni ummadda Soomaaliyeed u yaala oo ay danaynayso, gaar ahaanna reer Jowhar inay tahay mas-uuliyad gaar ah oo saaran, loogana baahan yahay inay adkeeyaan sidii wadajirkoodii walaalnimadooda ay usoo celin lahaayeen. midabta koor qabeeliyadeed iyo musuq maasuq meelna umadna ma geynayo. horeyna usoo aragnay magaaladii wadanka ugu nabadgelyada badnayd, iyadoo wadanku masaa'iib dagaal iyo qabaayil iyo colaado ay ka dhacayeen, in maanta kala shaki iyo tafraarug ummadda soo kala dhex gala. waxaan leeyahay maaha waxaynu ku habboon, wax layna ka bartayna maaha. aynu bal halkaa ku noqono hadduu ilaah raalli ka noqdo. wararka hadda iga soo gaarayaana maalmahan dambe aad baan ugu rajo weynahay ay noqdaan kuwa maaragtay dhaxalgal noqda. ugu dambeyn, waxaan kusoo gabagabeynayaa madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ah, madaxweynaha dowladda federaalka ah, dowlad goboleedyada iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee maanta mas-uuliyadda meelaha ay joogaan ka haya, ha ogaadeen qof walbaaba in maalin lala xisaabtami doono, mid adduunye iyo mid aakhiraba. waayo taariikhdu waxbay dhigtaa, dhaxal bay noqotaa dambo, dadkuna kama dhuuman karo. nin walbaaba halkii uu taariikhda ka galo ayuu ku xusnaan doonaa. mas-uuliyad waxay idinka saaran tahay caafimaadka dadkiina, amniga dadkiina, iyo maanta mas-uuliyadda aad haysaan. qof walbaaba qofka uu maaragtay mas-uulka ka yahay, ama heer guri ha noqoto oo qoys ha noqoto heer degaan ha noqoto heer maamul, ha noqoto dugsiyada waxbarashada, ha noqoto iskuulaadka. qof walbaaba mas-uuliyad baa saaran, lagula xisaabtami doono waxa uu qof walbaaba ummadda kusoo kordhiyo. waxaan leeyahay in la iscafiyo, anaa ugu horeeya. waxaa laga yaabaa inuu qof uun dhibsado, qof uunna ku farxo, anigoo dareenkaygu wanaagsan yahay oo isla wax hagaaji. mararka qaybtood baa wax dhici kara, waana wax dhaca. waxaan ilaahay hortiisa idinku weydiinayaa iscafis, waayo dareenkaygu maaha dareen aan ku doonayo inaan qof bini aadan ku dhibaateeyo, laakiin waa dareen aan ku doonayo inaan wax ku bedelo. maaha mid aan xukun ku doonayo ama aan xil ku raadinayo. iyadana waxaan leeyahay halkaa la isku cafiyo. arrinta kaleeto aanan jeclahay inaan maaragtay iyadana wax ka taabto waxa weeye,
Axmed Ismaaciil Samatar arrintiisa iyo hadallada kasoo yeeray runtii oo ah hadallo aada looga naxo. nin intaa ka culus ayaanu haysanay, waana nagu soo noqnoqonayaan toddobaadka ka dambeeya ereyadiisii iyo halkii shalay uu joogay iyo halkii aynu ka filaynay. waa arrin dhib badan oo xanuun badan. in qofku hal mar 90 degree uu halkaa u gooyo waa wax aada u maaragtay. haddana waxaan leeyahay waa muhiim soomaalinimadu qof iyo laba maaha, ummadda Soomaaliyeed bay u taalaa, jiilka soo baxay ay u taalaa. maaha inaynu jiilashii aabayaasheen failurekooda ama dib u dhacii jiilashii aabayaasheen inaynu ku mashquulno oo ayna saameyso maaha. waa inaynu ka gudubnaa dhalinyaro cusub, dhiig cusub, dad Soomaaliyeed oo niyad wanaagsan, kalsooni leh, himilo wanaagsan u hilaacayso. waa inaynu u fikirnaa sida caruurteena aynu uga tegi lahayn dhaxal waara. waayo inaga aabayaasheen dhaxal waara inuu kama tegin, inuu kama tegin dal dhisan laynoo kama tegin, institutions la kala dhaxlo si nabadgelyo leh ku dhisan laynoo kama tegin, dal maxkamadihiisu sharci iyo shareecad ay ka jirto laynoo kama tegin, dal dhisanoo laynoo kama tegin. alxamdulillahi rabbil caalamiin, wadanka barwaaqada abaa ilaahay ina siiyey. maanta inaynu cilmigeeda iyo himiladeedii u leenahay, weliba aan qolyahan maanta young professionalska aan weliba nasiibka u yeeshay guddiga caafimaadka, waan runtii aada maaragtay ugu mahad celinayo dareenkoodii iyo khibradii maanta aan la qaybsanay. waxyaabahaas oo dhan marka waxaan idin leeyahay waa wax inoo yaalla, ina hor yaalla, layna ka doonayo inaynu fulino, wadankeena u istaagno. waxaan idin leeyahay waan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo khudbadeeni jimcaha qaybtii bulshada aynu ugu talagalnay iyo inaga dhexdeena inaynu wadaagnaba. waxaan leeyahay intaas ayaan insha Allah kusoo gabagabeynayaa. waxaana ilaahay ka rajeynayaa inuu qulubta ummadda Soomaaliyeed isu soo duwo. wa'tasimu bihablillahi jamiican walaa tafarraquu. hadduu ilaahay raalli ka noqdo inna waxaan idin leeyahay safar wanaagsan. inta maaragtay joogtana waxaan leeyahay dee dadaal wanaagsan. waxaan kusoo gabagabeynayaa inaan qaybtii farsamada oo runtii Siraad Miicaad ay lafdhabar u noqotay arrimahan cooperationka ah iyo coordinationka, weliba qaybtan video link in mujtamac intaas la eg oo ay caalamku isku maaragtay iyadana waa mahad aada u ballaaran. qolada diiwaan maaragtay teamna iyagana waxaan leeyahay waa bilow wanaagsan. insha allahna waxaan rajeynayaa inaad halkaa kasii ambaqaadi doontaan. waxaan idin leeyahay jimcihiisa intaynu ka gaareyno waxaan idinkaga tegayaa amaanada ilaahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.